بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. inta badan bulshooyinka Soomaalidu waxay la socotay in deeta cadin ugu dhacay oo la arbishay oo ani hooyadayna la dilay oo aan la wadaagay baraha bulshada iyo qaybaha warbaahinta kala duwan. waxa la sugayay dadkii madaxda u ahaa dadkiina laayay ciidanka markaasi meeshaan tagnay ka ahaa waxay ahayd in jawaab loo wada dhag taagayo oo bulshadu si weyn u dhowrayso oo la wada filayo oo la isleeyahay maxaan ku dhahdaayay waxa ka soo bixi doona wax ama garwaaqsi ama garow waxa inanta iyo hooyadeed ku dhacay ah nasiib daro xalay waxa aan midiyaha ka arkay oo soo taagay afayeenka ciidanka Faysal Xiis iyo saddex kale nin oo runtii astaamo saraakiileed ka muuqdaan laakiin degabigoodu deedanaya oo aniga isu soo kay wadaag taagay si ay ugu jawaabi lahaayeen waxaan halkan soo fadhiistay maanta inaan sidii wax u dhaceen way cadayde aan bal eedaas aan salka iyo raadka oo toona lahayn been abuurka inta faraha leeg maxaa la yiraahdaa ilaa igula kacay anagoo waliba dilan anagoo jir dilan anagoo waxaan qabnay cidina soo eegin in maxaan ku dhahdaa halkan maanta inta xalay la soo istaaga la yiraahdo baabuur bay xoog ka soo gashay meesha Faysal Xiis wuxuu yiri saacadu waxa ay ahayd 6:49 minute 7:11 daqiiqo la xilliga ay inantu meesha soo gashay si ay u waafajiyaan xilliga gaarku ugu feejigan yahay ee maqaariibta baabuurta de soo gasha ama laga shaki karo ama la maaragtay la ogaande ana sida harka cad u adeegina maana service bixinay laamaha ka doonay dawladdu wuxuu yiri nasiib wanaag xabad kuma ridin wuxuu yiri intay soo degtay askariga dhawanaanaysa wuxuu yiri garsoorkan la tigsanayna nootaay sharci saxiixeen wuxuu yiri cid baa arrinkeeda dabada ka soo riixaysay waxaan leeyahay anoo arrimaha soo qodob u dul istaagaya ta koobaad ah saacada aanu meesha nimid uu ninkan hadlay Faysal Xiis ku sheegay inay ahayd 7:11 daqiiqo la ama 6:40 minute inay ahayd baara 4 iyo dheeraad oo aanay xataa 5 gaarsiisnayn marka salaada casar laga baxo sida ay ku cadahay maraga kaliya ay anigu aanan filaynba bartiisa ku daabacay Xamse Cumar ku joog wiilka la yiraahdo number 2 wuxuu yiri waxay xoog ku soo gashay gaarka kuma soo galina baarkin kan galay oo leeyahay dhaqaajin waliba halkan dhigaa oo halkan digi lahaa intuu ii tilmaamay waliba igu hore u gal oo igu hada garaysay inay yaro kibir badan baa tahay wuxuu yiri askari bay dhabanaanis qof kasta oo aqli leh wuxuu garanayaa in aan inta qof shicibi xarun dawladeed u yimaado oo uu soo service doonto aan cid waliba ku dhex dhabanaanin karin de wax aqliga gala in lagu hadlay waxay ahayd in been la sheego been run oo eeg la sheego waxay ahayd in la yiraahdo si fiican waan idinka adagnahay inta meel soo istaaga la yiraahdo arjuuqday iyo ku yiri juuqde laakiin ma yahayn in la yiraahdo halkaas ay xoog ku galeen iyo halkaas ay askari ku dhabanaanisay iyo halkaas ciidanka booliisku wax ku baahlay waxaad loola yaabaa runtii jawaab bulshada iyo annaga iyaga dhibanayaasha ahayn iyo eheladaydii toona ay ka filayeen ciidan kara ma noomana cuntanto waxaanay muhiimadu tahay adar meel dushiisa lama dhayo Faysal adigu waad hadashay haddii mas'uuliyad ku saaran tahay oo mas'uuliyad qaran ku saaran tahay gurigaaga iyo kaayagu intay isu jiraan wada ogtahay si fiican baad noo garanaysaa